howlgalka midowga Afrika ee AMISOM iyo saraakiisha ciidamada ammaanka ee dawladda Soomaaliya ayaa iska kaashanaya in laga hortago askaraynta carruurta loo adeegsado dagaalada. War qoraal oo ka soo baxay midowga Afrika ayaa lagu sheegay in Khamiistii la soo gabagabeeyay tababar 3 maalmood soconayay oo si wadajir ah ay u soo wada qabqaabiyeen AMISOM iyo dawladda Soomaaliya oo lagu baranayay joojinta askaraynta carruurta loo adeegsado dagaalada. Madaxa tababarkaasi Charles Dibra ayaa sheegay in tababarkan loo soo gabagabeeyay sabab la xiriira in wax badan laga ogaado tacadiyada ay la kulmayaan carruurta marka la eego dhaqanka askaraynta carruurta loo adeegsado dagaalada. Waxa uu ka dalbaday ciidanka dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM inay iska kaashadaan ilaalinta xuquuqda carruurta oo aan loo ogolaan inay ka qayb qaataan kooxaha hubeysan ku biiridooda iyo in si toos ah loogu adeegsado dagaalada. Madaxa tababarka ayaa sheegay in wada shaqaynta ciidamada ammaanka iyo AMISOM ay soo gabagabeynayso carruurta askar ahaanta loo adeegsado. Waxa uu intaa ku daray in carruurtu xaq ay u leeyihiin in si dabiici ah ay u koraan una noolaadaan. Joojinta ah in la askareeyo carruurta ayay si degdeg ah uga codsaday dawladda Soomaaliya iyada oo la kaashanayo ciidamada ammaanka iyo kuwa AMISOM. Waxa lagu qadaraa dagaalyahanada Al-Shabaab in kala bar carruur ay yihiin, waxaana taa ay xoojinaysaa ayaa lagu yiri warka qoraalka ee ka soo baxay midowga Afrika in la yareeyo carruurta ku biiraysa Al-Shabaab. Sanadkii 2016 deegaanada Puntland carruurtii lagu qabtay ee ka barbar dagaalameysay Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in dhiiri gelinayso in laga hortago askaraynta carruurta. Ergada midowga Afrika ayaa xukuumadda Soomaaliya si dhow ula shaqayn doona sidii loo xoojin lahaa carruurta oo askar ahaanta looga faa'iideysto sida dagaalada oo kale. Tababarka waxa ka qayb galay ayaa lagu yiri warkan ciidamo ka kala socday dawladaha Kenya, Ethiopia, Burundi iyo Uganda. Calaad Muumin, Goobjoog, Muqdisho.